الله عليكم ورحمة الله وبركاته. sheekadan waxaa noogu soo sheekaysay gabar joogto Canada. waa sheeko aad u naxdin badan. waxay igu tiri anigu waxaan ahaa nurse ama kalkaaliye, waxaana joogay isbitaal kaasoo joogaan dad badan oo jiran. isbitaalkaas anigu waa ka shakisnaa in ay ka ganacsadaan dadka xubnahooda muhiimka. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa ii imaaday titooreysada, waxaana igu tiri qof ayaa la qaliin lagu sameyn rabaa ee soo bax. markaa soo baxnay waxaa aragnay wiil yar oo jiran islamarkaana qaliin lagu sameyn rabo. waxaan isku soo diyaarinay inaan qaliinka ku sameyno. sidoo kale waxaan u diyaariyey mindi af leh. marka qaliinka isla markii caloosha laga sii qalayay wiilka calooshiisa waxaaba kasoo baxay wax aad u shiir badan oo ur badan. wiilkiina sidaas ayuu ku dhintay. kadib waxaan ogaanay wiilkii inuu sidaas ku dhintay. waxaan u sheegnay waalidkiisa inuu dhintay. waalidkiisa aad ayay uga xumaadeen. kadib aniga isbitaalka waa kasoo tagay, bas ayaa soo raacay, gurigeyga ayaan imaaday. maalintii labaad ayaa waxaa ku riyooday wiilkii oo calooshiisa qalan, weliba indhihiisa mugdi ah oo asiga dham cabsi leh. aad ayaan ugu naxay. asiga dham cabsi leh, farta ayuu saan hoose ugu fiiqay. aniga aad iyo aad ayaan u naxay, waana ku xumaaday arrintaas. waxaan imaaday isbitaalka, riye inay ahayd ayaaba ogaaday arrinkii. markaan isbitaalka imaaday waxaa imaaday nin askari u eg. kadib waxaan soo galay qolkii titooreysada noogu weyneed. markaan soo galay titooreysada ayaa ila hadashay. waxay igu tiri gasacaan qaad, waxaad u geysaa qolka meydadka gee. waa amar, hadda waa inaa geysaa ayaa lagu yiri. anigoo cabsanaya, qolka meydadkana aad uga cabsanaya, ayaa gasacii soo qaaday. gasaca markii laysoo dhiibay waxaan soo aaday, wiishka ayaa soo fuulay, hoos ayaana usoo daadegay. waxaa arkay nin meesha taagan. ninkii wuxuu igu yiri waa marka ugu horeysa soo maaha? haa ayaan ku yiri. taxadar samee ayuu yiri. meesha markaas oo kale waa meel aad iyo aad u ur badan oo dhiig leh oo wasaqaysan. aad ayaan u cabsaday aniga. waxaanba arkay bahal shaydaan jinni wuxuu yahay wax aan la aqoon oo aad u weyn, geesa leh, af weynna leh, lugihiisana aad u weyn. dhulka ayaa ku dhacay, dhiigga ayaa igu hallaabay. aad ayaa u cabsaday aniga. gadaal ayaa soo fiiriyey, waxaanba arkay bahal aad u weyn, afkiisa weyn yahay, gacmihiisa geesa leh, lugu waaweyn leh, af weyn leh, indhihiisa gaduudan yihiin sida shaydaankii oo kale u eg. sanduuqa ayuu furay, wuxuuna kala soo baxay hilib bini aadan. afka ayuuna gashtay. aad ayuu afkiisa u weynay. anigoo naxsan ayaa qolkii kasoo baxay. markaa kasoo baxay, maalintaas wixii ka dambeeyey isbitaalka kuma laaban. waxaana ogaaday isbitaalka inay toogan yihiin. gurigeyga ayaan iska joogay. maalintaas wixii ka dambeeyeyna isbitaal uma laaban. qolka 6aadne oo meydadka weligay ilaami maayo. waa qol. qisadan waxay igu dhacday anigoo jira 12 sano. waxaan ku dawaalanayay waasko ama baraakad sidaa u taqaanin, aniga iyo saaxiibkey. meesha anagoo ku dawaalanayn ayaa waxaa aragnay nin dheer oo meesha taagan oo zombie u eg, xiran dhar wada madow, wejigiisana aad u cabsi badan.
indhahana u duuban yihiin. Aniga aad ayaa u cabsaday. Soo dawaashay waxaa u sheegay saaxiibkii arrinka aad ayuu ugu naxgadaashay ayuu fiiriyay wuu soo orday. Kadib anigana waa cabsaday. Anigana waa soo dabaracay waa kasoo daba orday. Markaan kasoo daba orday waxaa arkay ninkii oo meesha soo fuulay. aad iyo aad ayaa u cabsaday aniga. Waa kasoo orodnay ilbiriqsi yar asigoo gacanta nagu dhigi raba ayaa albaabka daaqada albaabka miyaarad camal ayuu ahaa qaybta sare. Wuxuu sameynayaa asigoo arkaynay laakiin asigana ma arkaynin. Anaga waa u jeednay bud ayuu watay. anagana kursiga gadaashiisa ayaa ku dhuumanay. Albaabka ayuu isku dayay inuu soo furo laakiin wuu soo furi waayay. meesha ayuu noo taagnaa. meesha wuu ka tagay markii dambe. saaxiibkii ayaa wuxuu wacay security-ka. markuu wacay ayaa laga qabtay cabaar ayaa waxaa iska fiirsanaynay dhalo. anagoo filinka iskaga mashquulsan ayaan naxnay. waxaa aad u qeyligay saaxiibkii meesha noo fadhiyay. askari security ka mid ah ayaa soo baxay. wuxuuna arkay moobilkii. ninkii waa cararay. bistoolad ayuu soo qaatay askarigii. maalinkii dambe meesha ayaa ku dabaalaneynay. markastana waxaa iska fiiri jirnay shabaqa inuu soo istaagay iyo in kale. moobilkana waa ilaashay.